Hooyada Soomaaliyeed waxay calaamad u tahay jacayl. Marka ruux walba maqlo hooyo, waxa qalbigiisa ku soo dhacaya jacayl iyo naxariis. Marka ay rabto Soomaalidu inay cabbiraan halka ugu sarreysa naxariis, waxay u qaataan hooyo. Haweenku marka ay arkaan nin raba inuu nafteeda dhibaateeyo ama dhibaato u geysto sida kufsi, dhac, dil iyo cabsi gelin, waxaa qalbigeeda ku soo dhaca wiilkeeda oo kale. Markaas ayaa laga yaabaa inay qalbiga naxariis u geliso oo ay ilowdo dhibka uu u geystay oo dhan. Haddaba hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa fiicnaan lahaa inay ka faa'iidaystaan jacaylkaas iyaguna ay qabaan, ragga Soomaaliyeedna ay u qabaan, oo ay dalka dib u heshiisiin ka sameeyaan. Ragga Soomaalida ah mid waliba wuxuu leeyahay hooyo, xaas, walaal, habaryar, eedo, ayeeyo, dumaashi, sodo. Haddaba intaasi waxay ku beddeli karaan colaadii nabad, nacaybkiina jacayl. Waa Cabdulaahi Xasan Nuur Yariisow oo idin leh intaynu ku kulmi doono kilib kan la mid ah, sidaa iyo nabadiino.